beesha reer Xaaji Saleebaan in lagu marti qaado wufuudda kala duwan ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ee joogta caasimadda Dhuusamareeb insha Allah taala waxay kale tooy ay diyaar u yihiin hadii shirku sida la filayo iyo uu sii dheeraado inay midka ay ka soo kaceen mid kale tab ay ku soo daraan waxay kale too diyaar u yihiin inay geel kaliya keenin wax kale ay ku soo daraan waxaan rabnaa insha Allah taala inaan si mug iyo macno leh aan uga qayb qaadano shirkaas wanaagsan ee quruxda badan ee hidiidada badan ee Soomaaliyeed ay ka muuqato waxaan u rajaynaynaa insha Allah taala shirka guul iyo gacmo buuxa waxaan u maleynaynaa insha Allah inuu guuleysto doon hadii la haydmo waa mahadsantihiin dhamaantiin maamulka caasimadda iyo wasiirada iyo xildhibaanada aad baad u mahadsantihiin shaqada aad wadaan waan bogaadinaynaa anoo ku hadlayna magaca xildhibaanada galmudug gaar ahaan degmada Cadaado ka soo jeeda reer Xaaji Saleebaan waxaan ka wadnaa geel aad u jeedaan aan ka wadnaa waxaan kaloo ka wadnaa fariin ay nagu soo fareen inay shirka iyo dawlad goboleedka galmudug inay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin xoolahanina aysan ahayn kuwii ugu horeeyay oo ay keenaan haddii shirku sii socdo mar labaad iyo mar saddexaadba diyaar ay yihiin qayb ka mid ah xoolihii hadda la soo dhiibana gaadiidka noo qaadi waay sidii la sheegay geelaani waa 29 soddon iyo jajab uu ahaa baabuurta noo qaadi weyday runtii inta kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan xafladan dadka soo qayb galay oo ugu horeeyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulka caasimadda iyo dhammaan inta ka soo qayb gasho dhan waxaan kale u mahad celinaynaa shirka ay martigelisay dawlad goboleedka galmudug oo ugu horeeyo madaxweynaha iyo madaxda kale ee galmudug hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay madaxda kale madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wasiirada shirkana waxaan u rajaynaynaa guul waxaanan maaragtay ku soo dhammaynaynaa in beeshu hiil iyo hoo ay la garab taagan tahay shirkan iyo galmudug 29 neef oo geela ku wareejiyay runtii waxay muujinaysaa dadka deegaanadan degan balsaqiinimadooda iyo sida ay wanaag u jecel yihiin iyo sida ay isku taakuleynayaan iyo sida ay uga go'an tahay inay ka qayb qaataan balnabadeynta iyo horumarka halkan ka socda geela markii aan fiirinay calaamadaha kala duwan ee ku qoran runtii waxay muujinaysaa in meelo kala duwan bal laga keenay oo geel suuq laga soo iibiyay oo san ahayn sumadda ku dhigan balki deelka oo kor u jeeda iyo qoorjeeda iyo alifka iyo waliba qadhawada markaan aragnay waxay muujinaysaa in geelan uu yahay geel si sax ah loo soo aruuriyay oo dadkii deegaanku ay si sax ah isaga soo aruuriyeen oo aan suuqa laga soo gadin run ahaantiina aadan u bogaadinaya waxaan ku wareejinayaa wasiir Saciid Aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam amma ba'du ma hada maanta Allah iskale kadibna beesha geelan soo aruurisay iyadoo ay ahayd runtii inaan hormarno hadda waqti kastaba waxa la yiri hadii wax la helo wada macaan xilli ay noqoto mudana gudoomiye warkii waa la yiri beeshaanu waxay la garab taagan tahay shirkan galmudug martida loogu yahay oo ka socda caasimadda Dhuusamareeb inaanay waxba ka hagran hiliyo la garab istaagto waxa la wixii loo baahdana ay dhinaceeda iyo sida ugu dhaqaalaha badan iyo sida ugu dhaqsaha badan ba ay garab istaagto mudana gudoomiye geelan sida xildhibaanadii ee khaartii ugu horeysay ay sheegeen waa 29 qaarna gaadiidkii qaadi waayay waa la keeni doonaa haddii shirku nagu daba dheeraadana mid ka sii badan la keeni doonaa mudana gudoomiye waxaan ka codsanaynaa inaad naga gudoonto annagoo ay ahayd inaan hormarno soo horaba u sheegay laakiin hadda xilli ay noqotaba hadda aan nimid dabaadinimo kala wax noo ka sheegi maayo waligaana la dabaadiyati waa soo hormari doonaa rabbil caalamiin mahad celinta iyo mataqaana waxaan la qabaa wasiiradii saaxiibada ahay halkan ka hadlay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu celiyo mahad celintaas geelan sodomiyada ah oo maanta ay keeneen beesha reer Xaaji Saleebaan oo waxaan rabnaa inaan si gaar ugu mahad celinno waxay muujinaysaa sidii ay dawladnimada
u garab taagnaa jireen weligood oo ay u martigeliyeen muddadii 4 sano la soo dhaafay ay u hayeen dawladdii galmudug ayay la daba joogaan taasina waxay muujinaysaa sida ay dadka wax u dheer yihiin oo ay u yihiin dad milga iyo sharaf leh oo mataqaanaa ay u soo daba kaceen haddana caasimaddii galmudug maanta ay mataqaanaa ula garab taagan yihiin hiil iyo hooba waxaan rabaa reer xaaji inaad kaga mahad celiyo arrintaas waa milga iyo sharaf aad leedihiin dadka reer galmudugna abaalkaas waa idiin hayn doonaan weligood siday tii horo idinkugu hayeenay tanna buuggii unbay idin sii galaysaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee galmudug guud ahaan deganna inay saasoo kaleeto u wada daysan doonaan rajaynaya oo ay mataqaanaa jidkaas la wada mari doono waa mahadsantihiin waxaan ka mahad celinaynaa oo aan ka ducaynaynaa deeqdan ballaaran oo maaragtay maanta nalagu wareejiyey annagoo matalayna maamulka gobosha halkan ay taallo oo runtii maaragtay maalmahan oo dhanba shaqadan ku hawlanaa iyo geel la wareegista waxaan uga mahad celinaynaa beesha reer xaaji Saleebaan oo runtii beel ballaaran ah isxilqaanka runtii aad iyo aad aan qarsoonayn oo aad maaragtay geelaan ku keenteen waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo geelaan waa geelii lixaad oo aan la wareegayno beeshii lixaad oo geel kala wareegaynaa tihiin markii dhan kale la fiiriyana waxaad tihiin beesha labaad oo ugu geela badan oo halkan geel keenta waxa ruuxanay reer xaaji geel ma ogola iyo waxyaabahaas ilaa geela waa bixi lahaydeen waxa ku bixi lahaydeen hadda ka hor aan la arag aad iyo aad u mahadsantihiin waxay muujinaysaa runtii laxujeclada aad nabadda u qabtaan laxujeclada aad galmudug u qabtaan iyo runtii tafsiir waxay u tahay budhigga aad galmudug u tihiin marka aad iyo aad u mahadsantihiin deeqdan waa guddoonnay runtii waxaan kaloo bogaadin lahayn mas-uuliyiintii qaranka oo qayb walba isugu jirta hadday tahay maamul goboleed iyo hadday tahay mas-uuliyiintii kaloo madaxweynihii rasuulihii waa joogaan dadweynuhu mar walbaba waxay wax ku bixinayaan geela lagu dhiibayaa ariga lagu dhiibaa lacagta lagu dhiibayaa ummadda u gurmanaysaa nabaday meesha ka rabtaa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa oo soo jeedinaynaa in waxa ay malaysanayso rijaynayso maanta meeshan ay ka soo baxaan ummadda in la guub yeelin madaxdu waxaan rabnaa inay maaragtay ummadda waxa ay ka malaynaysan soo saarto waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay reer galmudug haddaan ahay duqii caasimadda intii meeshaas la fadhiyo haddii ilaahay yidhaahdo anigoo kaashanaya shacabkayga ama dadkayga reer galmudug wixii gogashaa lagu cuni lahaa inay noo diyaarsan yihiin geela hadda noo joogaahay ilaa 20 maalmood uu nagu filan yahay oo na wadi karaa geel kalaan sugaynaa ari kalaan sugaynaa reer galmudug waa noo soo socdaan beelihii hore oo hataa geelii hore keenay hadda mid kale haddana maanta soo wadaan marka meeshaan waxa weeye runtii wax cajiib ayaa ka dhacay aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa intii hore wax u keentay waxaan u mahad celinaynaa beesha reer xaaji Saleebaan oo si kala har lahayn sida wasiir Dhoorra uu sheegay geelaan waxaan ognahay jufooyinka reer xaaji u dhasheen inay maarta sumadahoodii ku wada yaalaan oo loo kala harin meesha marka runtii waxa weeye waa tafsiir wanaagsan geel la soo gaday maahana waa geel sidii geela loo aruuri jiray loo soo keenay marka xara walbo geelaas laga soo bixiyay waxaan leenahay ilaahay wax ka qayr badan iyo bedel Allah geliyo Allahna nagu ilaaliyo sadaqada waxa weeye waana xifdi oo waa xirsixir waana macnaha silo iyo xiriir waana sharaf marka intaba Allah idin kulmiyo aad iyo aadna waa u mahadsantihiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi